Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, welcome to Ilmi Online Academy. Welcome to lesson 3. Kusoo dhawaada Ilmi Online Academy, kuna soo dhawaada casharka saddexaad ee buugga koowaad Basic English Grammar. Casharkii hore waxaan kusoo baranay nouns. Waxaan isweydiinay what is a noun? Waa maxay noun? Waxaan ku jawaabnay a noun is a name. Waa magac of people, that place, goob or things mise waxyaalo. Waxaan sii baranay common noun. Waxaan isweydiinay what is common noun? What is a common noun? Waa maxay common noun? Waxaan ku jawaabnay are words for people. Waa magacyo dad, animals, xoolo, places, goob or mise things waxyaalo. Common noun waa magac guud, halka noun ay tahay magac walbo waa noun. Common noun waa qayb ka mid ah magacyada. Casharkii hore waxaan ku baranay common nouns for people. Magaca guud ee dad ayaan ku baranay halkaasi. Casharka maanta waxaan ku baran doonaa common nouns for animals. Magaca guud ee xoolo ayaan baran doonaa casharka maanta. Examples, tusaalooyin aynu ka bixin doonaa insha Allahu ta'ala. Eagle waa gorgor haddii aan dhahno waa magaca guud ee gorgor. Gorgorada way sii kala baxaan balse waa magaca guud ay dhammaantooda isla wataan ayaa ah eagle. Zebra waa dameer farow waa magaca guud. Dameer farow haddii aan dhahno waa magaca guud. Deer waxaa la yiraahdaa xayawaankan ayaa la yiraahdaa deer. Marka deer haddii aan dhahno waa magaca guud. Birds waa shimbiro waa magac guud. Shimbiraha way kala baxaan balse waxay isla wataan halkan magac oo ah birds. Crocodile waa yaxaas. Pear waxaa la yiraahdaa xayawaankan. Af Soomaali kuma aqaani, haddii aad garanaysid ii soo sheeg. Cat waa bisad. Cow waa lo. Dog ey. Fish kalluun. Duck waxaa la yiraahdaa shimbirtan. Marka haddii aad ku garanaysid af Soomaali ii soo sheeg. Fish waa kalluun. Mar labaad ayaan soo celiyay. Goat waa ari. Waa ari. Goose waxaa la yiraahdaa shimbirtan. Marka haddii aad ku garanaysid af Soomaali fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo sheegdid waxaa lagu yiraahdo Soomaali. Hen waa digaag. Horse waa faras. Mouse waa jiir. Parrot waxaa la yiraahdaa shimbirkan. Marka ii soo sheeg haddii aad ku garanaysid af Soomaali. Shark waa qayb ka mid ah kalluunka. Shark. Whale waa nibiri. This is the end of our today's lesson and I hope you enjoy watching this wonderful video.
Wish you success in this life and hereafter. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye.